waxaa noo soo baxday inay jiraan group siyaasiyiin ah oo reer SSC oo barnaamijka ka xun wada dhalashada la adkeynaya iyo walaaltinimada ka xun in ay muwaafaqo yeeshaan maamulka Khaatumo iyo dawladda Puntland marka waxa bulshadu isweydiinaysaa ama adiguba qof yahay isweydiin kartaa qofka arkaya Muuse iyo cawaankiisa oo u durbaan tumanaya Isxaaqiya iyo raashin Isaaq in la mideeyo si dhul ka maqan ay u soo ceshtaan ninka reer SSC ama groupka reer SSC ee ka shaqeynaya inay xumaato wada dhalashada tulweynaha harti ama hortaagan inay muwaafaqo yeeshaan maamulka SSC iyo dawladda Khaatumo waxa uu jeedaa maxay tahay wuxuu ka dhaxlayaa haddaba aan idin cadeeyay qorshahani ma aha mid groupkan siyaasadeed ay hindiseen ee waa fuliyayaal ay fulinayaan qorshe meel kale laga soo hindisay groupkan waxaad ku garan kartaan waligood wanaag reer SSC kama shaqeyn waligood dun umayan gelin balse waxay ku tilmaaman yihiin oo lagu yaqaanaa kala qaybinta reer SSC waxa lagu yaqaanaa in ay maamul kasta oo SSC hore u samaystay inay majaxaabiyeen maantana kan ay u soo dhigteen